وبركاته وعن هالكان كسلامينا ولالكيغا هذا شيخ حسين وحن ليه شيخ حسين waxaa socoto cafi walaalkaaga ayaa socota cafi walaalkaaga oo hadda Soomaali ka socota jirto Sheikh Hussein waxaan ka rabaa cafi walaalkaaga sidee bay kula tahay inaa cafisid walaalkaaga loo baahan walaalkay cafiye maxaan ku cafiyaa waay walaalkaa waxaad ku cafinaysaa ala dartiisaad ku cafinaysaa ala dartiis waa jirtay laakiin waxa jiro wax la yiraahdo dhaqan dhaqan cafiyaay waxaan ku cafiyay kulkeegi ya beertaygi badkaygi gurigaygi walaalkay lahay ama walaashay lahayd ama ikhwaankay lahay as haysta waxaan ku cafiyaa markaa meesha dhan nuuro okay sida ma okay hadda aniga xukuumadan leenahay xukuumadan waxaa laga yaabaa insha Allah taala cafi walaalkaaga ma qof kasta xaqeeda inuu dooda laga yaabaa hadii xaqaaga u doodid oo dawladda markaas xaqaaga ku ogolaatin walaalka cafis madiidanta waxaan ku cafiyeen ani horta xaqiiqa la siiyo xaqaaga markii lagu siiyo oo ku doodo dawladda ay ku doodo walaalkaas oo macafilaysa markaas waa cafiyaa intaas ka rabnaa okay baxo meeshay alayga baxo hadda macafiyay waxay alayga baxo markaas cafiyaan okay hadda maxaa laga haastaa hadda waxa laga haastaa gobolkii laga haastaa gobolkii kursiga laga haastaa qayb wixii dawlad golaha la isiinayni صح وحيا ضد عمل بمل احتراف وي وحال يريبو معيران وحواي معيسان في كل محل جلوس لوم اوي لوم انا يو على يريبو يو حواي يريديد وي عفوا اوكي برنامج كان عفوا walaalkaaga sidee isku leeyahay intaas nakii mid sees loo socda ujeedadeedana maxay tahay barnaamijka magi magac oo kor laga sheego waa fiican yahay laakiin magi hoostiisa la galo wax ma ka jiraan وان قرتي اوكي معته باقليد يا برنامج كان عفو walaalkaaga باقل هاي هدي الناس عفيه la rabo يا waxa باقل هاي in aniga gobolkayga laga baxo kulkayga laga baxo xuquuqdeeda la siiyo dawladda ay ictiraafto inaan aniga meeshan leeyahay on shali on dhaqan iyo dhiftan u lahay on dhaxalkii awoogay oo yani waxa dhahaysaa yani anigoo dulmoon inaan qof si cafiye laga ma yaabo